السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel kastoo joogna malaha nooga amaansada maanta mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay numbers iyo sidii loo qori lahaay qofkii soo bartay lineska qofkii soo bartay numberskana waa u fududaana aada u fududaana lineska iyo numberska way isleeyihiin sidii abcda loo soo qoray camal loo qoraya kan easy waaye marka markasta dadka waxaan ku waaniyaan lineska waa inaa la bartaa ilmaha wax u fududaanaya ilmaha lineska la bara wax kasta u fududaanaya farta u fududaanaysa qaabka wax u qori lahaa u fududaanaysa marka maanta numberska si loo qori lahaay ayaa mawduuceena ku saabsan yahay iyo sidii loogu aadin lahaay boxka markastaba waxaan dhahay ilmaha boxka ku aadiya fartiina aad ay u qurxoonaanaysa si kastoo cunug farxun yahay hadduu boxka ku aadiyo hortiisa aad iyo aad ay u qurxoonaanaysa marka maanta mawduuceena saas waaye hadda one aan qoray one-ka waa kas boxkan ku aadiyay two sikako and sleeping line waaye three waxaa waaye double sikako four waxaa waaye standing line sleeping line standing line waaye five waxaa qoraysaa standing line sikako sleeping line sixaa ku seexatay sikako le waa aada u fudud yahay sikako le dhehe seven waxaa qoraysaa sleeping line oo ku bilaabe standing line eight waa kaasaa sikako iyo sikako kale aada u fudud tahay kana sikako standing line ten waaba kaasaa one caadi a dhigtay iyo sikako aada u fudud yahay markaleeta uu soo celinaa ciyaalka waa kaasaa yacni one-ka qaabka sida u dhigi lahaayeen one adhahdi lineka ku aadinaysaa two-gana waa kaasaa qaabkaasaa u dhigaysaa aada iyo aada u fudud three-ga double sikako four-ka oo kaleeto yacni waxaa ku aadinaysaa lineka standing line sleeping line waaye five waaba ku sheeg easy ani simple ciyaalka si yaroo simple ah wax in lagu baro u fiican haddii saan oo lagu wado fartooda aada ay u qurxoonaanaysaa buuga oo cunuga jeexan yahay iyo buuga oo cunuga handwritingkiisa bad yahay point ma helahay laakiin hadii si fiican lineka ugu toosiyo oo buugiisa oo nadiif u yahay yacni cunuga point fiican u helaa marka markastaba waxaa anigu waan lahay waalidiinta ay ku dadaalaan ciyaalkooda sidii ilmahooda fartooda ugu qurxoonaan lahayd oo lineskana ay ku dadaalaan qaabka lineska ay ku baran lahaayeen marka insha allah ilaah u fududeey adkaarkana loogu dadaalo markasta ay wax qorayaan allahuma inii as'aluka cilman naafican warisqan dayiban wacamalan mutaqabbalan saas waa inaan lahaa way ugu fududaanay ilmaha waxbarashada u fududaanay haddii taxoodinka la qoro insha allah marka waa kaasaad markasta ugu soo celcelinaya insha allah hadhowna barnaamijkan kusoo xigana ku dar iyo ka jiraan baranayna insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.